bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. warkii oo kooban. munaasabad lagu abaalmarinayey shaqaalihii ugu wanaagsanaa shaqada wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha somalilan sanadkii tegay ee ayaa lagu qabtay magaalada hargeysa. dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday hub cusub oo ay ku taakuleynayso dowladda dalka yukrain si loo xoojiyo aagaga hore ee dagaalka u dhexeeya ciidamada yukrain iyo ruushka. dowladda baabuwa new guinea ayaa ka hadashay xidhiidh ay la samayn doonto waddanka shiinaha. ciidamada yuhuudda ayaa weeraro kala duwan oo xooggan ku qaaday qaar ka mid ah cisbitaallada marinka qase gaar ahaana magaalada khan yunis sida ay caddaysay hay-adda bisha cas ee falastiiniyiintu. ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka iyo 4 xubnood oo kale oo ka tirsan madaxda sarsare ee midooda yurub ayaa ku canaantay midooda yurub in ay ka gaabiyeen in ay ka gaadhaan dalka yukrain hadafkii laga lahaa. intaasi waa qodobada wararkeenna ugu doorka roon markana u diyaargarooba warkan oo faahfaahsan. munaasabad lagu abaalmarinayey shaqaalihii ugu wanaagsanaa shaqada wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha somalilan ee sanadkii tegay ayaa lagu qabtay magaalada tan hargeysa. munaasabadan waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta, guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda, agaasimaha guud ee wasaaradaha maalgashiga, gaadiidka, shaqogelinta, guddoomiyaha hay-adda maamul wanaagga iyo marti sharaf kale oo tiro badan. waxaa ugu horreyn munaasabadan ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha cabdikariin aadan siciid cabdikariin aadan cadde, isagoo u mahad celiyey shaqaalaha wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha oo uu uga mahad celiyey shaqada adag ee ay qaranka u hayaan. waxaa kale oo uu tilmaamay agaasimuhu in munaasabadan sida oo kale lagu soo bandhigayo waxqabadkii sanadkii tegay iyo buugyaraha hagaha shaqada shaqaalaha ee wasaaradda uu hirgelintiisa uga mahad celiyey hay-adda shaqaalaha dowladda iyo komishanka maamul wanaagga. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay munaasabadan ka warbixiyey agaasimo waxeedyada waaxyaha qorsheynta iyo cududa shaqaalaha ee wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha, waxaana ay ka sheekeeyeen waxyaabihii u qabsoomay sanadkii galbaday iyo hirgelinta habraacyada buugyaraha hagaha shaqaalaha. iyaguna waxaa goobtaasi hadalla ka jeediyey guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda khaalid jaamac qodax, guddoomiyaha komishanka maamul wanaagga liibaan buraale, agaasimayaasha guud ee wasaaradaha gaadiidka iyo shaqogelinta. waxaana ay tilmaameen in tirada shaqaalaha la abaal mariyo uu xadiday xeer, waxaana ay ugu hambaliyeeyeen shaqaalahan la abaalmariyey abaalmarintana la guddoonsiiyey iyo shaqo wanaaggii ay soo muujiyeen sanadkii tegey. ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan mudane saciid xasan habane iyo wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha cabdirasaaq ibraahim maxamed, waxaana ay tilmaameen in abaalmarintani tahay mid dardargelin u ah shaqaalaha. agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdikariin aadan siciid oo uu weheliyo guddoomiyaha gobolka saaxil cali cabdi cabdilaahi cali case, waxay kormeer ku sameeyeen warshadaha kala duwan ee ku yaala magaalada berbera. sida uu kasoo warramayo wariyaha wakaalada wararka ah ee soolna uga soo warrama magaalada berbera mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud, waxa ay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha somalilan iyo maamulka gobolka saaxil booqdeen warshado ay ka mid yihiin warshadda daqiiqda, warshadda jiingadaha, warshadda masaabiirta iyo warshado kale. maamulka gobolka saaxil iyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha somalilan waxa ay warbixin ka dhageysteen intii ay kormeerkaasi ku jireen ganacsatada kala duwan ee warshadahaasi gacanta ku haya, gaar ahaana maamulada warshadaha ku yaala magaalada berbera. mudanayaasha warshadahan ayaa sheegay in wax soo saarka warshadahani uu gaadho gudaha iyo dibaddaba, gaar ahaan wadamada ay somalilan jaarka yihiin, iyaga oo sida oo kalena tilmaamay in wax soo saarkoodu yahay mid ku filan dalka jamhuuriyadda somalilan.
dhankoodana maamulka gobolka saaxil iyo kuwa wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha somalilan ayaa uga mahad celiyey ganacsatada samaysay maalgashiga sida ay dalkooda u aamineen islamarkaana u maalgashadeen. dowladda waddanka maraykankuna waxa ay ku dhawaaqday hub cusub oo ay ku taakuleynayso dowladda dalka ukrain si loo xoojiyo aagaga hore ee dagaalka u dhexeeya ciidamada ukrain iyo kuwa dalka ruushka. xogayaha arrimaha siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka victoria nuland oo barteeda x twitter soo dhigtay qoraal kooban ayaa sheegtay in dowladda maraykanku ay bilowday in ay ciidamada ukrain ku caawiso hub cusub kuwaasi oo ay ku jiraan bambooyinka dhexda yar kuwaasi oo wakhtigan qaarkood ay gaadheen aagaga hore ee dagaalka. victoria nuland ayaa tilmaantay in ciidamada ukrain ay ka awood badan yihiin kana qalab badan yihiin wakhtiyadii hore marka loo eego hubka ay hadda haystaan iyo hubka ay sanadkii hore haysteen, iyadoo intaasi ku dartay in ciidamada ukrain ay ku guulaysteen in ay dalkooda ka xoreeyaan ciidamada ruushka 50%. ciidamada ukrain ayay tilmaantay in ay ku khasbeen ciidamadii ruushka in ay dib uga baxeen badda madow oo ay hore u joogeen, waxaana ay sheegtay in sida oo kale in uu kor u kacay dhaqaalaha ukrain 4% ilaa 5% dhammaadkii sanadkii hore. dowladda ukrain ayaa hore cabasho uga muujisay hubka ay dowladaha kala duwani ku caawinayaan ciidamadooda kuwaasi oo ay ku tilmaameen kuwo aan qaarkood rasaastooda la heli karin, halka kuwo kalena ay u baahan yihiin in ciidamadoodu ay muddo badan ku tababartaan. dowladda Papua New Guinea ayaa ka hadashay xidhiirka ay la samayn doonto waddanka Shiinaha iyada oo sababaysay xidhiirkaasi sida ay qortay warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee Papua New Guinea Justin oo warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi la hadlay ayaa sheegay in waddankiisu kala hadli doono dowladda Shiinaha iskaashi dhanka ammaanka ah oo ay yeeshaan, waxaana uu intaasi ku daray in aanu xidhiirkaasi wax saameyn ah ku yeelan doonin xidhiirka dalkiisu la leeyahay dalka Maraykanka iyo Australia oo ay saaxiibo dhow yihiin. wasiirka arrimaha dibadda ee Papua New Guinea waxa uu sheegay in dowladda Shiinuhu ay ka caawin doonto dowladdiisa tababaro iyo dhisme ay ku samayso ciidamada kala duwan ee dalkaasi, gaar ahaan ciidamada booliiska. dalka Papua New Guinea ayaa bishii May ee sanadkii hore heshiis la saxeexday dalka Maraykanka, halka ay dalka Australiana heshiis kala saxeexdeen bishii Disembar ee isla sanadkaasi. khubarada siyaasadda arrimaha dibadda falanqeeya ayaa rumaysan in Shiinuhu uu doonayo inuu gobolkaasi xasilooni darro ka abuuro islamarkaana uu liid cas dhex dhigo labada dal ee Papua New Guinea iyo Maraykanka. ciidamada yuhuudduna waxay weeraro kala duwan oo xoogan ay ku qaadeen qaar ka mid a cusbitaalada marinka qasa, gaar ahaana magaalada Khan Younis sida ay caddaysay hay-adda bisha cas ee falastiiniyiintu. ciidamada ayaa weeraro xoogan ku qaaday cisbitaalka Al Amal, Naasir iyo cisbitaallo kale oo ku yaala magaalada Khan Younis ee dhulka Falastiin. dhankiisana agaasimaha hay-adda qaramada midoobay ee UNRWA Thomas White ayaa waxa uu sheegay in ay goobo badan oo caafimaada ku waayeen duqaymaha ay ciidamada yuhuuddu ka wadaan magaalada Khan Younis, isagoo intaasi ku daray in kumanaan ka tirsan shaqaalahooda ay ka saareen magaalada Qasa, gaar ahaan dhanka koonfureed ee Qasa. sidoo kale ergeyga falastiiniyiinta u fadhiya golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa u soo jeediyey golahaasi in la adkeeyo go-aamadii ay soo saartay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ, waxaana uu intaasi ku daray in loo baahan yahay in xabad joojin deg deg ah lagu dhawaaqo. tirada dadka ku dhimatay duqaymaha dabargoynta ah ee ay ciidamada yuhuuddu ka wadaan magaalada Qasa ayaa gaadhay 26,900 oo qof, halka dhaawacuna uu gaadhay 65,949 qof oo dhaawac ah. ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka iyo 4 xubnood oo kale oo madaxda sarsare ee midowda Yurub ayaa ku canaantay midowda Yurub in ay ka gaabiyeen in ay ka gaadhaan dalka Ukraine hadafkii laga lahaa. ra-iisul wasaare Olaf ayaa oo qayb ka ahaa madaxdii ka qayb galaysay shirka degdega ah ee ay isugu yimaadeen madaxda midowda Yurub ayaa sheegay in loo baahan yahay in la dedejiyo
kaalmooyinka dhanka hubka ah ee la siinayo dowladda ukraine maadaama oo dagaalka ay kula jirto ukraine dalka ruushka uu daba dheeraan karo. dhankiisana madaxweynaha dalka hungary victor orban ayaa ku dhawaaqay lacag dhan 50 milyan oo yuuro oo lacagta yurub ah oo ugu deeqay dalka ukraine isagoo u soo jeediyey madaxda kale ee yurub in ay dadejiyaan kaalmooyinka kala duwan ee ay siinayaan ukraine. ra-iisul wasaaraha jarmalka victor orban, denmark, ruut iyo mas-uuliyiin kale oo midooda yurub ka tirsan ayaa ku canaantay madaxda kale ee yurub in ay ka gaabiyeen in dagaalka ukraine laga gaadho ujeeddadii laga lahaa, waxaana ay tilmaameen in aanu ruushku cidna sugayn loona baahan yahay in la dedejiyo dagaalka ukraine kaalmooyinka lagaga qayb qaadanayo. warkaasi waxa uu idinka imanayaa radio hargeysa codka jamhuuriyadda somalilan. 2 diyaaradood oo laga leeyahay dalka jabaan ayaa isku dhacay sida ay shaacisay shirkadda diyaaradaha ee Osaka. 2 diyaaradood ayaa isku dhacay xilli ay mid ka mid ah diyaaradahani ka duushay garoonka diyaaradaha Itami Airport, waxaana ay diyaaradani ku socotay magaalada Hyogo oo ku taala galbeedka dalka Jabaan. ilaa hadda ma jirto cid wax ku noqotay shilkan oo ay mas-uuliyiinta duulimaadyada ee Jabaan sheegeen inuu ahaa mid sahlan. shilalka diyaaradaha ayaa dalka Jabaan ku soo kordhayay 2 sano ee ugu dambeeyay iyada oo bishii January ee sanadkan 2024 ay 2 diyaaradood oo mid ay ciidamada Jabaan leeyihiin ay isku dhaceen, taasi oo keentay in 5 qof oo shaqaale ka ahaa diyaaradahani ay dhintaan. diyaaradan ay shaqaaluhu ku dhinteen ayaa ka kacday garoonka diyaaradaha ee Niigata iyada oo doonaysay in ay kaalmo gargaar gaadhsiiso dhulkii uu dhulgariirku ka dhacay dalka Jabaan. sidoo kale mid ka mid ah diyaaradaha laga leeyahay dalka Jabaan ayaa dabqabsaday dhowaan kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Haneda Airport oo ku yaala caasimadda Tokyo, waxaana diyaaradan saarnaa rakaab tiradoodu gaadhayso 367 qof iyo shaqaale dhan 12 xubnood oo shaqaale ah, kuwaasi oo dhammaantoodba nabadqab lagaga daadgureeyey halkaasi. war wixii dunida iyo dalkaba naga soo gaadhay khiyartan dhegeysanaysaa intaasi ayuu ku ogyahay.